ku soo dhowaada sharaxaada nidaamka siyaasadda Jarmalka oo loogu talagalay dadka Soomaalida ah ee ku cusub dalkan. Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka waa dal ku yaal bartamaha Yurub oo ah dal dimuqraadi ah oo federaal ah. Tani waxay ka dhigan tahay in awoodda loo qaybiyey dowladda dhexe iyo dowladaha gobollada iyadoo dastuurka Jarmalka oo loo yaqaan Grundgesetz uu qeexayo qaabka siyaasadeed. Jarmalku waa jamhuuriyad baarlamaan federaali ah, taas oo macnaheedu yahay in madaxa dowladdu yahay madaxweyne halka ra'iisul wasaaruhu yahay madaxa dowladda. Baarlamaanka Jarmalka oo loo yaqaan Bundestag ayaa leh awood sharci dejineed oo muhiim ah. Dowladda federaalku waxay leedahay awoodo gaar ah oo ay ka mid yihiin arrimaha dibadda, difaaca, lacagta iyo socdaalka. Waxay sidoo kale awood u leedahay inay dejiso shuruucda guud ee dalka oo dhan taasoo saameyn ku leh dhammaan gobollada. Gobolladu oo loo yaqaan Länder waxay leeyihiin awoodo u gaar ah oo ay ka mid yihiin waxbarashada, dhaqanka iyo ilaalinta sharciga. Gobol kasta wuxuu leeyahay baarlamaan u gaar ah iyo dowlad u gaar ah taasoo muujinaysa madax-bannaanidooda. Madaxweynaha Jarmalka, Bundespräsident, waa madaxa dowladda waxaana doorta golaha federaalka, Bundesversammlung. Madaxweynuhu wuxuu metelaa Jarmalka heer caalami, wuxuuna saxiixaa shuruucda ka hor inta aan la dhaqangelin. Madaxweynaha hadda waa Frank-Walter Steinmeier oo xilka hayay 2017. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka, Bundeskanzler, waa madaxa dowladda waxaana doorta Bundestag kadib soo jeedin uu sameeyey madaxweynuhu. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu xukumaa dowladda wuxuuna soo jeediyaa siyaasadaha isagoo ah hogaamiyaha fulinta. Ra'iisul wasaaraha hadda waa Friedrich Merz oo xilka qabtay May 2025. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu soo xulaa wasiirada federaalka, kuwaas oo madax ka ah wasaaradaha kala duwan. Kirada wasiiradu way kala duwanaan kartaa, laakiin badanaa waxay u dhaxaysaa 5 ilaa 8 wasiir. Wasiiradu waxay mas'uul ka yihiin fulinta siyaasadaha dowladda ee waaxyahooda iyagoo hubinaya in shaqadu socoto. Baarlamaanka Jarmalka wuxuu ka kooban yahay 2 gole, Bundestag iyo Bundesrat. Bundestag waa golaha hoose oo si toos ah loo soo doorto, halka Bundesrat uu yahay golaha sare oo ay wakiil ka yihiin dowladaha gobollada. Bundestag wuxuu dejinayaa shuruucda, halka Bundesrat uu ka shaqeeyo sidii uu u ilaalin lahaa danaha gobollada. Doorashada Bundestag waxay ku salaysan tahay nidaam isku dhafan oo xubno saami qaybsi ah. Tani waxay ka dhigan tahay in xubnaha qaar si toos ah loo soo doorto, halka kuwa kalena loo soo doorto iyadoo loo eegayo saamiga ay xisbiyadu ku leeyihiin codadka.